barasabka gobolka Gabiley Maxamed Cismaan Xaaji Axmed Indhabalac ayaa maanta waxa uu furay shir lagaga hadlayo sidii degmooyinka hoos yimaada gobolka Gabiley loo gaarsiin lahaa mashruuca maamul daadajinta. shirkani oo hal maalin socon doona ayaa waxa qayb ka ahaa isuduwayaasha laamaha dawladda gobolka Gabiley iyo gudoomiyaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka. ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay heer number 23 baa dhigaya in degmo waliba ay hoosta ka soo dhisto oo ay la wareegto adeegyada ay u baahan yihiin bulshadu waxyaalaha adeeg bulshada loo qabanayo in hoos loo sii daadajiyo ay kaabayaashaasi u noqdaan kaabayaal runtii wax tara in ay isku xidhnaadaan si ay u noqoto hawshu hawl wada socota oo runtii dhinac wada socota. marka aad iyo aad baan maanta anigu bogaadinayaa in aynu gobol ahaan degmooyinka dhan halkan isugu yimaadeen maamul daadajintiina runtii la wado. degmadana waa degmadii magaalo madaxda u ahayd gobolka. marka waxaynu doonaynaa runtii inaynu dood wadaagna yeelano si wacanna aynu shaqada u wada qabano adeega baahiyaheena iyo duruufaha inagu xeeranna aynu runtii iska xog wareysano. marka shirku inoo furmi doonaa sida barasabkuba sida officialka uu inoogu furay shirkan. maanta shirkan aynu halkan ka furnay ee barasabku inoo furay waa shir hawleed hal maalin socon doona oo aynu ugu talagalnay in la isu dubarido ama kor loogu qaado mashruuca maamul daadajinta ee ka socda gobolka Gabiley oo ka warqabtaan runtii oo ay qaybaha kala duwan ee mashruucaasi khuseeya ay isku weydaarsanayaan xog hadday tahay wasaaradaha hadday tahay degmooyinka runtii ay iska xogaal wareysan doonaan wixii qabsoomay iyo waxa qorshaysan. annagu degmooyinkii ay degmada Gabiley dhashay ayaanu ka soo jeednaa. farxad weyn bay noo tahay maanta haddii mashruuci GPLG uu gudoomiyuhu degmada ku soo daray degmooyinkii annaguna dawaanu dhimir samaanaynaayo hooyada hadday nuujiso ilmaha naaska oo inay caanaha siiso ilmahaas caasi ma noqdo. aad iyo aad buu hooyadii u maqlaa. maanta wixii ka dambeeya gudoomiye muxaafid baan ahaanayna insha Allah haddii la yidhaahdo qaanado badan fayda. waa tallaabo aad iyo aad u qiimo badan. waa tallaabo loo baahan yahay. waa tallaabo lagaga tashanayo waxa aynu dalkan u qabanayno iyo waxaynu qabanay in lagu xisaabtamo oo la isugu yimaado saddexdii biloodba mar. waa arrin aad iyo aad iyo aad u qiimo badan. marka waxaan aad ugu mahadnaqayaa mas'uuliyiinta soo qabanqaabisay inta ka soo qayb gashay labada gobol ee galbeedka kulli ku horeeyay kulanka sektoraalka ee kala bilaabay. taasina waxa ku tusinaysaa sida horumarka iyo bulshada u dhawaanshadeeda wax u qabashadu yaani sida gobolada kale Soomaaliland ugu dadaalayaan aad baan ugu faraxsanahay inaan u shaqeyno bulshadeeni. waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.